kulanto wanaagsan saaxiib soo dhawaad waxaan rabaa inaan idin la wadaago xogtii wararkii ugu dambeeyay dagaalo culus oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in xalay ilaa caawa ilaa saakay duqeymo culus ay ka socdaan degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud xogaas ayaan rabaa inaan idin la wadaago dagaaladaas wixii ka soo kordhay haddii ay tahay markii ugu ay soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe channelka like ni saartiin si jirgireysid si aan u helno saaxiibada adiga kale aad u maasatahay dagaalo culus oo ka dhacay saacadihii la soo dhaafay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula wareegeen qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Ruunirgood haddan oo idin hadlaya waxa ku sugan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka in Ruunirgood la qabto iska maysan imaan balse waxay ku timid amar uu bixiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odwa Yuusuf Raagi iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shooti oo ku sugan degmada Aadaniyaal bilay u dambeeyna halkaas uu ahay saldhig ay ka awaawalaan weerarada ka dhanka kooxda Al-Shabaab taliyaha iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa halkaas awaamir culus ay xalay ka dhiibeen ayaa saakay waxa soo gashay in gacan ku haynta degmada Ruunirgood oo in muddo ama bilooyin ku jirtay gacanta kooxda Al-Shabaab balse ugu dambeyn Ruunirgood caawa waxa ku sugan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka Ruunirgood ayaa caawa lagu soo waramaya in dhaqaaqyo culus oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ay ka socdaan halkaasna gawaarida iyo wadooyinka soo gala baaritaano culus caawa lagu sameynayo sababtoo ah Al-Shabaab waxay sameyn karaan waji walbo ay dib ugu soo laaban karaan degmada Ruunirgood balse ciidanka ayaa hadda u muuqda in foojignaan dheeri ay muujinayaan maadaama wadooyinka iyo gawaarida soo gala degmada Ruunirgood aad loo baarayo aadna loo xasilinayo ammaanka degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale waxaan rabaa xogtan la mid ah in idin la wadaago nimankii Al-Shabaab ahaa waxay dib ula wareegeen deegaanka Awoorey oo ka tirsan gobolka Hiiraan deegaanka Awoorey ee gobolka Hiiraan saakay dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa gudaha u soo galay kadib markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ah ee halkaas u dhashay ay iskaga baxeen sabab la xiriira istiraatiijiyad ciidan sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha laamaha ammaanka ee ku sugan qaybo kamid ah deegaanka Awoorey ee gobolka Hiiraan Awoorey hadda waxa lagu soo waramayaa in caawa ka socdo dhaqaaqyo iska soo horjeeda oo labada dhinac ah Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale saraakiishu waxa ay noo xaqiijiyeen in halkaas caawa ka socdo guluf ka dhan ah ama abaabul ciidan oo la rabo in gacan ku haynta deegaanka Awoorey gacanta dawladda in dib loogu soo celiyo la rabo waxaana la rajeynayaa in saacadaha soo socda halkaas uu ka dhaco ama uu ka qarxo dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda Al-Shabaab deegaanka Awoorey waxa istiraatiiji ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa dadka deegaanka ay ugu soo baxeen waxaana la sheegay in amarkaas ciidanka dib ay ugu soo baxeen deegaanka Awoorey uu bixiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odwa Yuusuf Raagi balse taas bedelkeeda caawa waxa socda awaabul ciidan oo caawa ka socda deegaanka Awoorey oo la rabo in gacan ku haynta deegaanka Awoorey dib loogu soo celiyo gacanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka Awoorey waxa deegaan ahaan dega beesha Xawaadle oo iyaga markii horeba sabab uu ahaa in uu bilaawdo dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab beesha Xawaadle ayaa ahayd beeshii ugu horeysay ama qabiilkii ugu horeeyay ee dagaalka Al-Shabaab u soo istaaga taasoo Al-Shabaab beesha Xawaadle ay gacan ku haynta deegaano badan oo ka tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay kaga saareen beesha Xawaadle hadda waxa lagu soo waramayaa in gabi ahaanba ay ka niyad jabtay ama ay ka quus dhigtay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab maadaama ama haldoorada beeshaas ka dhashay sida ay sheegeen in dagaalka lagu fiirsaday sidii ay rabeen loo garab istaagin hadda Awoorey qaybo kamid ah waxa ku sugan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka waxaana qaybo kamid ah sidoo kale ku sugan kooxda Al-Shabaab oo hadda qaybo kamid ah caawa maamulaya deegaanka Awoorey si kastaba caawa gobolada Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan waxa ka socda dagaal iyo duqeymo toos ah oo lala galayo kooxda Al-Shabaab ee ku sugan qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan haddii inta ila soo gaartay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe channelka like ni saartiin in si sheergareey si uu u gaaro saaxiibada adigoo kaleeta aad iyo aad ay u maasantahay mahad ka gaadhay ayaan ku leeyahay mahadsanid saaxiib